wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo ay ku wehelinayeen wasiiro kala duwan ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Hargeysa kadib markii hawlo kala duwan oo dhinaca nabadgelyada ay dhowr maalmood ku qaadatay sidii ay arrimahaasi ugala hadli lahaayeen dadweynaha reer Boorama. wafdigana waxaa sii sagootiyay barasaabka gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayar iyo maayirka degmada Boorama. waxa kale oo wafdigaasi sii sagootiyay iyaguna oo kaga hadhay magaalada wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta محمد جامع عبقال iyo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland Ali Xaamud Jibriil. waxana wafdigaasi ay ku sii hakadeen deegaanka Dila. waxana intii aanu wafdiga madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ka ambabixin magaalada Boorama warmurtiyada ay soo saareen wafdigaasi saxaafadda u jeediyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami. waxana uu sheegay in kulamo kala duwan oo ay la yeesheen bulshada noocyadeeda kala duwan oo ay hormood ka ahaayeen culimaa u diinka, maamulayaasha dugsiyada, cuqaasha, salaadiinta iyo waxgaradka in la isla gaadhay in nabadda sideeda looga wada shaqeeyo. waxa kale oo uu wasiirka gaashaandhiggu carabka ku dhuftay in arrimihii kala duwanaa ee ay u yimaadeen ay ugu dhammaadeen si guul ah. wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladiisii ka mid ahaa wayna baarigeen tawfiiqda wanaagsan oo lagu kala tagay oo lagu khaas yeelay cidii iyadu fikradan waday la yiri iyada dabarka u ridanaysa haday dibaduna dhoofi lahayd iyo haday sidii adduunka la arki jiray qof qaldamay ummadiisii iyo salaadiintiisii iyo waxgaradkiisii u soo noqdo oo la yiraahdo afallahu amma salaf wixii qaladana waan ka soo noqday fitradii socotayna waan ka baxay. waxaana ka mid ahay mujtamaca weyn oo salaadiinta leh oo shacab weynaha leh baan ka mid ahay hadduu yidhaa inta uu isagu markaa rumaalaysiga ku jiro annaga xagga iyaga oo xagga xukuumadda annagu inkastoo aanu xilkii ku wareejinayba madax dhaqameedkii haddana wuxuu yahay markaa qof khiyaanatal watan ku kacay abaalmarintiisuna waxa la wixii markaa uu sharcigu u ku jiraynayo oo uu dad horena dembigeeda lagu qaaday buu kala mid yahay. marka uu sidii hadda ay nagu yidhaahdeen doorashadu isagay u taallaa inuu yidhaah sidaasaan dan mooday oo dabadeedna aniga iyo khabarada isku xidhan oo dibadaha baan adeegsanayaa dabadeedna sidaasaan wax ku challenge garaynayaa. xukuumad iyo shacbi waxay ay dabacday wax ka bedelan baan wataa hadduu ku adkaystana wixii nasiibkiisu siiyo ka qaadayaa. dalkana markaa wuxuu ka yahay qof cahdigii iyo miisaaqyadii yiilay buriyey oo jabiyey oo ku gafay buu noqonaya. hadduu markaa isa soo dhiibo oo yidhaa cafallahu camaa salaf oo yidhaa matalan muwaadinka shariifka ah oo weliba taytalka dhaqameed sita baan ahay wuxuu dalbaxayaan saaxiibaday baan baxaa ummaddana nabadgelyadeeda ay u soo martay waddada dheer way iga nabadgelaysaa uu yidhaana waxaanu ka wada xidhiiraynaa biidni illaahi alkariim oo arrintaa ballan qaaday dhammaystirkeeda sidii kale oo dhan waa u dhammaystiran tahay laakiin kelimadii ugu dambaysay iyagaa ka soo qaadaya xagga iyaga runtii khaa'inal waddanka ah laakiin mar hadduu taytal madax dhaqameed sito iyagaa sidaa iyaga u tegaya. jawaabtii kaba dambaysta ahaydna waxaanu ka sugaynaa salaadiinta isaga ka sugi mayno idaacadiya TV-ga ka sugi mayno iyagaanu ka sugaynaa. waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.